waxaan ku suganahay garoonka diyaaradaha ee Orlando International Airport ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. boqolaal shacab dadweyne ah ayaa safaf dhaadheer ku jira waxa ay soo dhaweynayaan waa gudoomiyaha jaaliyadda Maxamed Cumar Warsame Talyaani oo bilii la soo dhaafayba dalka dibadiisa ku maqnaa. waxay isugu jiraan waxgarad aqoon-yahano siyaasiyiin culumaawidiin haween waxay ka kala yimaadeen magaalada Pretoria iyo waliba sidoo kale magaalada Johannesburg. qaar ka mid ah dadkii maadaasha ku sugnaana hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. boodka Orlando ayaan joognaa waxaan soo dhaweynaynaa sida arkaysaan ama la socotaan gudoomiyihii jaaliyadda Koonfur Afrika ee Somali Community Board Maxamed Cumar Talyaani si nabad ayuu ku soo degay hadda ayaan soo dhaweynay sida arkaysaan dadweynaha soo dhaweynta hablaha iyo ragga waan inay mahad celinayaa iyo madaxda kala duwan ee joogta meesha gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ayaan ku soo dhaweynaynaa waddanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg waana fahmi kartaana waxa waaye South Africa xilligu ugu baahida badnaa uu joogayo sharciyada iyo waddanka xoogaa ee ka jiraan cabsiyo weyn oo gudoomiyuhu nooyay markaa soo dhaweynayna hawlaha shaqada dib ay nooga bilaaban doonaan aad iyo aad u mahadsantii jaaliyadda dhamaantiis iyo gudoomiyuhu soo dhawaada dhamaantiin ma sha Allah oo kamay farxadnayga inuu hadhawaayna gudoomiye Maxamed Cumar Talyaani madana gudoomiye Michaelana hadhawaaw usoo ka maqnaa safar shaqo muddo lama bilood nabadahani deeri إن شاء الله كله هذا قدوميها دالني هذا المبادئ هذا البدن هم بويو أنا كهذا أفكي جاليد صوماليات أفكي جاليد وكفر قلبيت ميلنا مدن قدوميها دواء مرلمات إمر سدها تكدواء يعني نقول الله هاي سودو ودن قاعد كسودو واحد ملاينا يا وادريم كرتادتك وقت يمادين إياه سد الوجود عليه هاي waxaan leeyahay gudoomiye Talyaani soo dhawow dadka ku jecel ku soo dhaweynayo marka insha Allah waxaan ku leeyahay welcome back cabar waa naga maqnayd soo dhawow ku leenahay gudoomiye Maxamed Cumar Talyaani gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed South Africa soo dhawow South Africa ku soo dhawow dadku jecel ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad gacmo furan ku soo dhawow sidoo kale waxa goobta ku sugnaa oo kaalin buuxda ka qaatay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Cabdiraxmaan Gaarane afayeenka jaaliyadda Abubakar Duqow gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug Cabdiraxmaan Indhaburco ahna isku xiraha jaaliyadda waxaan u joognaa oo soo dhaweynaynaa gudoomiyihii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani oo ku dhawaad 2 bil inooga maqnaa waddanka dibadiisa ee waddanka UK waxaanu leenahay gudoomiye dadkaagii iyo magaaladaadii iyo shacabkaagii oo ku jecel ku soo dhawow inta kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii soo qaban qaabisay intan oo dadan isku keentay aad baan ugu mahad celinayaa Orlando International Airport ku soo dhaweynayna gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika Maxamed Cumar Talyaani oo safar shaqo ku maqnaa muddo 2 bilood ku dhow waxa uu gudoomiyaha u soo degdegay marxaladda waddanka hadda ka jirta awgeed waxaan leenahay mudane gudoomiye halkan ku soo dhaw dalkan xilli lagu baahnaa ayaa timid dhammaan aad iyo aad u mahadsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee caawa Orlando International ku sugan si qaasana u soo dhaweynaya gudoomiyihii jaaliyadda guud Maxamed Cumar Warsame Talyaani waxaan leenahay way daaleen shacabkaagii jaaliyaddii aad bay ku sugayeen waana mudan tahay in waqtiga intaas lagu galsho gudoomiye maadaama safar shaqo aad ku maqneed waxaan rajaynayaa inaan istaagan isku wareysan karin oo fadhi aad kula kala duwan la sii doonto jaaliyadda waana ku wareysan doonaa hadii la yiraahdo dadka si aad ayuu daalan caawa kama gaar dad kale inaan hambaliyeeyo way maasan yihiin gabdhaha quruxda badan dhammaan jaaliyadda madaxdeeda kala duwan aad iyo aad u maasan yihiin ugu dambeyn Maxamed Cumar Warsame Talyaani ayaa uga mahad celiyay sida quruxda badan leh ee loo soo dhaweeyay marka hore aad iyo aad u mahadsantihiin xaqiiqdii waxaan si nabad ku imaaday dalka South Africa oo aan in muddo ah uga maqnaa fasax shaqo oo 2 bilood ahayd culaysyada jira iyo locationada iyo waddanka wax ka soo ziyaaday awgeed ayaan safarkeyga u soo gaabiyay fadhi ayaan isku wareysan doonaa insha Allah taala waxaas la yaab ilaahay caawa si tartiib ah dhuumasho ku soo gal ayaa waddankii ugu jirtay laakiin jamaahiirta banaanka taagan marka arkay waxay dhiig igu sii shubaysaa inaan jaaliyaddan sanado badan u sii shaqeeyo waana maasantiina idin leeyahay wixii warna dib aan isku dhiganaynaa insha Allah taala Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha TV-ga Shabeelle garoonka diyaaradaha Orlando International Airport ee magaalada Johannesburg